السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي qiimaha sharafta leh kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta qof kastoo nooli waxa uu leeyahay furo lagu furo markastoo qofka aad rabtid sida loo furo iyo furaha lagu furo wax jira dad aan isfahmin oo midba midka kale ka cadhoodo isagoo leh ka ama taa waa lay diiday xaqiiqdu waxay tahay isfaham waaga ka dhex jira iyo kala duwanaanshaha fikradooda aad u kala fog si haddaba aad u heshid qofka aad rabtid waa inaad baadho oo aad raadisaa dhaqankiisa saxda ah waxa uu rabo iyo waxa uu diidan yahay kadibna intaad ka fahantid aad isku midka ka tihiin kala sooc qof kasta dabeecad gaar ah ayaa uu leeyahay nago qof cid kasta fahmi karto cid kastana ugu jawaabi kara sida ugu saxsan iyo waqtiga ugu saxsan nago qof ay dadka cafiya raali geliya una mahadnaqa una hambaliyeeya la farxa lana wadaaga farxadda iyo murugadaba dadku ma aha inta aad isku hareeraysan tihiin se waa inta ku taqaan inta aad taqaanid inta aad maqashid iyo inta aad magac dhul dhalasho dhiig iyo diin wadaag tihiin dadkaaga dhaqan wanaagsan iyo la shaqay wanaagsan kula noolow dadka ka farxi farxadda kula noolow si aad u gaadhaan halka aad hiigsanaysaan isbeddelka nololeed ee aad rabtaan waa mid ku xidhan halba si aad u kala dhaqantaan sida aad naftaada u howlgelisid naftaada inaad howlgelisaa waa mid u baahan qorshe joogto ah sidoo kale waa mid u baahan in la raaco oo wado dheer oo aan la gaarayn waxa ka hor yaala wax kasta oo kasoo horbaxana awooddaada shaqsiyadeed ku jir oo ku dhaaf samirna oo ha liicin waa darkin dhib iyo daal badan se raaxo iyo nolol islagaya ka dambaysa markaad samirteed dadaashid kuna kalsoonaatid naftaada iyo waxa qabadkaaga shaqsiyadeed markastana tala saar Allah subxaanahu wa tacaala yeelo qof aad ku dayatid qof kasta toosin buu u baahan yahay dhaqaale iyo dhaqaajin buu u baahan yahay adduunka dadka ku nool qof kasta waxa uu leeyahay wax soo saar Allah subxaanahu wa tacaala ugu talagalay inuu aadamku waa cajiib qof kasta wax qabad buu leeyahay haddii laga shaqaysiyo maskaxdiisa aqoontiisa iyo xooggiisaba qof kastana waxa uu u baahan yahay xiriirka Allah subxaanahu wa tacaala iyo in iscaawinta ummaddu ay isu caawinayaan noloshu waayo badan waqti badan werwer badan wanaag badan iyo wehel badan bay u baahan tahay nago qof noloshiisa iyo nolol kalaba meeleeya salaanta islaamka ku salaan assalaamu calaykum waxaad heli doontaa dad badan oo ku jecel waxaanad wehel u noqon doontaa dad badan oo cidlo iyo wehel la-aan dareemayay salaanta aad salaantid walaalkaaga ama walaashaada ayay sabab noqon kartaa inaad afkaar iyo sheeko wadaag yeelataan dabeedna aad heshiis ku noolataan salaanta aad salaantid ayaa furo u noqon doontaa inaad u heshid waxaad markaasi haysan salaanta baday salaantana qaad dad kasta oo ku farax salaantaada iyo wehelkaaga intaan aynu ku eegi doonaa muuqaalkeena maanta intaan muuqaalkan mid lamid ah ku kulmi doono sidaas iyo fi amaanillah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته